wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil oo wata diyaarada nooca dagaalka ah iyo ciidamo xoogan ayaa ka degay magaalo xeebeedka Berbera wafdi ka socda dhinaca Somaliland oo isla Berbera ku wajahan qorshaha socdaal ee wasiirka arrimaha dibadda ee Yuhuudda muxuu yahay qorshaha ay dawladda federaalka Soomaaliya ay arintan kaga jawaab celinayso wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaad ku saabsan Israa'iil oo dhagaha ka fariisatay baaqadii heerka caalami ah imikan ay si toos ah ay ugu soo bareertay in ay waxba kama jiraan ka soo qaado baaqadii la xiriiray inay ixtiraamaan midnimada dhuleed ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay arintan ku saabsan ayaan idin la wadaagi doonaa dhamaantiina soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkana share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiina aragtidiina qaybta faalada ama comment kaga soo dhiibta kan ku bilaabo wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil isla markaana ay la socdaan saraakiil ciidan iyo ciidamo aad u fara badan oo ay weheliyaan diyaaradaha nooca dagaalka ayaa gaaray magaalo xeebeedka Berbera halkaas oo uu si toos ah uga bilaabi doono kormeer ay ku sameynayaan dhul cabirkiisu yahay 50 kilomitir oo laga siiyay deegaan xeebeedka Berbera halkaas oo loogu talagalay in Israa'iil ay ka dhisato saldhig military madaxweynaha maamulka Somaliland Abdiraxmaan Cirro oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa imikan gaaray Berbera waxaana kormeerkan ay ku wehelin doonaan wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil oo booqanaya goobo ay Somaliland u cayintay in saldhig military ay ka sameystaan Israa'iil waxaana ay arintan ay ka dambeysay ka gadaal markii ay Israa'iil ay siisay aqoonsigii ay baadigoobaysay maamulka Somaliland 34 sano ayna weedaartay isla markaana ay kaga bedesheen inay ka helaan saldhig military in si lamid ah dad gaaray 1.5 milyan oo reer Falastiin ah dib u dejin looga sameeyo deegaanada maamulkaasi oo si qasab ah looga soo rarayo dhulkooda iyo in si lamid ahna ay Somaliland ay si toos ah ugu biirto heshiiska Abraha oo uu saxiixi doono Abdiraxmaan Cirro wafdigan heerkiisu uu sareeyay ee deegaanada waqooyi galbeed ee Soomaaliya maanta soo gaaray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa isha ku haysa dhaqdhaqaaqidan waxaana wararku ay sheegayaan in Israa'iil gabi ahaanba ay ka dhaga fariisatay baaqadii heerka caalami ah ee soo baxay la xiriira inay ixtiraamaan midnimada Soomaaliya ee dhuleed waxaana markan ay u muuqanaysaa in Israa'iil ay si toos ah ugu soo bareertay in ay ku soo xadgudubto madax banaanida Soomaaliya waxaase loo fadhiyaa talaabada nooca military ee ay qaadi doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawladda Turkiga oo kol hore si buuxda dawladda Soomaaliya uga ballan qaaday inay ku garab taagan yihiin difaaca midnimada dhuleed ee Soomaaliya waxaana si lamid ah imikan si toos ah dadka deegaanada Somaliland ay wajahayaan cabsi xoogan maadaama dhawaan war ka soo baxay xuutiyiinta Yemen ka dagaalanta ay si cad u sheegeen in ay beegsan doonaan goob kasta oo ay Israa'iil ay ka degto amaba ay ka sameysato fariisin ee deegaanada maamulkaasi waxaana baqdinta ugu weyn ee imikan wajahaya shacabka ku nool magaalada Berbera oo ay cabsi xoogan ka qabaan in ay halka ka dhacaan qatar amni oo waaweyn hase ahaatee waxaa jirta in amniga magaaladaasi si weyn loo adkeeyay diyaarado nooca qumaatiga u kaca ee dagaalka ayaana lagu arkayaa hawada sare ee magaalada Berbera mana jirto wali war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo looga hadlayo talaabadan xadgudubka weyn ku ah madax banaanida Soomaaliya wixii warar ah ku soo kordha adiga ugu horeyn doona nabadgelyo